kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Dana Media qodobada aan ku soo qaadan doono warka Dana Media waxa qayb ka noqonaya xarunta tababaro ee al-shabaab ku lahaayeen Jubbada Hoose oo duqeyn lagu burburiyay taliyaha qaybta 12aad oo kormeer dhiirigelin ku gaadhay dugsiga tababarka Harqaboobe ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku yaala degmada Gurceel degmada Qasax Dheer ee gobolka Bay oo qasaare xoogan lagu gaarsiiyay maleeshiyada ka tirsan argagixisada al-shabaab ciidanka kumaandooska xoogga dalka oo shabeelaha dhexe ku dilay maleeshiyada ka tirsan nabadiidka al-shabaab akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah xaaladda dalka Myanmar oo faraha ka sii baxaysa fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka Dana Media subscribe like iyo share la wadaag asxaabtaada iyo inta nacab nabadiidka al-shabaab aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya duqeyntan oo ka dhacday buurta Kumba oo qiyaastii 12 kiiloomitir u jirta magaalada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu burburiyay xarunta kooxda argagixisada nabadiidka naflacaariga maleeshiyadka al-shabaab ay ku tababari jireen maleeshiyadkooda oo halkaasi ku taalay duqeyntan oo warar hordhac ka soo baxayeen ayaa waxaa lagu dilay 15 horjooge iyo maleeshiyada kuwaasi oo ku sugnaa xaruntaasi tababarka oo lagu marin habaabin jiray maleeshiyadka ay qaldayaan ee dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed duqeyntan ayaa waxa iska kaashaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska Danab iyo saaxiibadooda caalamka sida idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaalida u xaqiijiyeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee qaybta 43aad saraakiisha ayaa intaasi ku daray meedadka iyo dhaawacyo fara badan oo maleeshiyadkii lagu duqeeyay xarunta tababarka la geeyay degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Cadow Cali Sanka oo waqtiga laga faa'iideysan lahaa tababarka sare ay qaateen taliyaha qaybta 12aad General Sanka ayaa ciidamada dugsigan ku jira iyo saraakiishoodaba ku amaanay dhabar adayga ay u muujiyeen xilligii dheeraa kormeerka shaqo ku marayay farisimaha ciidamada ayaa maanta kormeer ku gaaray dugsiga Harqaboobe ee Gurceel oo ka mid ah xeryaha tababarka qaybta 12aad ay ku jiraan ciidamo in muddo ah uu socday tababar sare oo lagu barayay xeeladaha dagaalka si loogu diyaar garoobo hawlgallada laga xoreynayo deegaanada al-shabaab ay ka joogaan Galmudug saraakiisha dugsiga Harqaboobe ayaa warbixin ka siiyay taliyaha qaybta xaaladda ciidamadan xeradan ku jira iyagoo tilmaamay in lagu guuleystay ka soo gudbida marxalad adag oo ciidamadan lagu diyaarinayay haatana la joogo ee tababarku socday waxa uuna ballan qaaday in loo dhammaystirayo agabkooda si looga faa'iideysto aqoontooda ciidankan ayaa qayb ka noqon doona marka uu tababarku u dhamaado bacsiga nabadiidka naflacaariga maleeshiyadka al-shabaab ee deegaanada farakutiriska ku dhibaateeya dadka shacabka aan waxba galabsan maleeshiyad ka tirsan argagixisada al-shabaab ayaa waxay isku dayeen inay weerar gaadma ku qaadaan degmada Qasax Dheer ee gobolka Bay waxaana halkaasi jab xoogan lagu gaarsiiyay al-shabaab 9 maleeshiyad oo laga dilay 12 kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale tare maleeshiyad dhaawaca ayaa nolosha loogu qabtay sida idaacadda ciidamada qalabka sida Soomaalida u xaqiijiyeen saraakiil hawlgalkaasi hogaaminaysay saraakiisha ayaa tilmaamay inay ka warqabeen dhagarta cadowga isla markaana ay u diyaar garoobeen iyagoona sheegay in ciidamada AMISOM ee degmada ku sugan iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed iyo kuwa militariga Soomaaliya ay bacsadeen maleeshiyadka dhinaca kale saraakiisha amniga iyo maamulka degmada ayaa sheegay in degmada Qasax Dheer iyo nawaaxiga degmadaasi ay ka sameeyeen hawlgallo lagu bacsanayo kooxda argagixisada al-shabaab kaasi oo al-shabaabka looga dilay 3 maleeshiyad isla markaana looga qabtay mootooyin ay isticmaali jireen dhibaatooyinka ay u geysteen shacabka degmadaasi hawlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayay ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab waxay ka fuliyeen deegaanka Gamboole oo qiyaastii 48 kiiloomitir u jira magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle hawlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayay ciidanka kumaandooska ku dileen ku dhawaad 10 maleeshiyada tareentaasi ka badan oo ay ku dhaawaceen sidoo kale ciidanku waxa ay soo qabteen hub iyo saanad kale oo ciidan sida uu xaqiijiyay idaacadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed kusimaha taliyaha guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka Danab ahna taliyaha ururka 7aad ee guutada 16aad Dhamme Xasan Maxamed Cismaan Xasan Tuure hawlgalka oo ay fuliyeen ururka 7aad ee guutada 16aad ee kumaandooska Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa yimid kadib markii ay ka warheleen in maleeshiyadka al-shabaab ee deegaankaasi Gamboole ku dhibaateynayaan dadka shacabka ciidanka kumaandooska xoogga dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay gobolka Shabeellaha dhexe ka waday hawlgallo lagu bacsanayo argagixisada al-shabaab haatan akhbaaraadka caalamka ugu yaraan 3 qof ayaa ciidamada ammaanka ee Myanmar toogteen xilli dibadbaxyada looga soo horjeedo militariga ay dalkaasi ka socdaan 2 wiil oo dhalinyaro ah ayaa waxa lagu hortoogtay afaafka hore ee saldhig boolis ee magaalada Takete ee deegaanka Yangon
dhallinyaradan ayaa ku baaqayay in xabsiga laga sii daayo dibadbaxyaal kale oo halkaasi lagu xiray. sidoo kale haweeney ayaa lagu toogtay goobta lagu magacaabo Mandalay, halkaasi oo warar lagu baahinayo baraha bulshada ay sheegayaan in ciidamada ay rasaas u isticmaaleen dibadbaxyaal si nabada u banaanbaxayay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya warka aad kala socoteen channelka Dana Media. fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay subscribe, saar, like, share la wadaag asxaabtaada iyo inta necab nabadiidka Al-Shabaab. sidaas iyo nabadgelyo. لقال جيره وقدل من قلبتي قد برد لقال جيره وقدل من قلبتي عدي انا داها هي لبا دير كتاغنان وانطوب كدارساني انا داحا للسعون قد برد لقال جيره وقدل من قلبتي قد برد لقال جيره دل من قلبتي قلنك يا هوان كنا هداني دابر وذا حيدن للي يري وايل حدان جديد لو وذا قوين قلنك يا هوان كنا هداني دابر وذا حيدن للي يري وايل حدان جديد لو وذا قوين shada guud sumadada dhalashada inaan dhabanka laga tirin dadnaanay dhalan robin waa la isku dhaarsaday ogowdhaada shada guud sumadada dhalashada inaan dhabanka laga tirin dadnaanay dhalan robin waa la isku dhaarsaday bay noqon ehay olashaya wax baa dhici ehay olashaya dhul baad noqon ehay olashaya dad baad dhali ehay olashaya dhabay noqon ehay olashaya wax baa dhici ehay olashaya dad baad dhali ehay olashaya dhul baad noqon
dhashaya dhulbaad noqo